Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada ku xiran channelkeena SYC waxaad fadlan subscribe saar channelka haddii aad ku cusub tahay gambaleelkana riix si ay rugun kugu noqdaan waxyaabaha aan soo gelino channelkeena SYC. waayahay maanta waxaan idin haynaa ama idin soo gudbi doonaa taariikh ku saabsan Sayid Maxamed Cabdulle Xasan oo gaaban. Sayid Maxamed Cabdulle Xasan waxa uu dhashay gugii la magac baxay Gobaysan sanadka markuu ahaa 1856. gugaasi Gobaysan uu ahaa barwaaqo ah oo dadka iyo dunyada wixii dhashay xilliga ay hanaqad noqdeen. wuxuu ku dhashay sayidka balliga la yiraahdo Sacmadege oo 12 kiiloomitir u jirta deegaanada Buuhoodle dhanka kana xigta dhinaca waqooyi. Sayid Maxamed Cabdulle Xasan Sayid Maxamed Cabdulle hooyadii waxaa la oran jiray Cara Sayid Magan. sayidka waxa uu guursaday ilaa 33 haween ah waxayna u dhaleen inta la og yahay 11 wiil iyo waliba dhowr gabdhood. Sayid Maxamed Cabdulle sanadka markuu ahaa 1892 wuxuu u aaday dhulka lagu magacaabo Maka iyo waliba Madiina. wuxuu halka ku maqnaa 2 sano iyo dheeraad. sayidka sanadka markuu ahaa 1895 ayuu ku soo noqday dhulka Soomaaliya markaa uu aasaasay ciidanka lagu magacaabi jiray daraawiishta. Sayid Maxamed Cabdulle Xasan iyo waliba gumeystihii Ingiriiska waxaa dhex maray dagaallo badan waxayna dadka yiraahdaan ilaa 41 goobood ayay iskaga hor yimaadeen. dagaalkii ugu horeeyay waxa uu dhex maray ciidanka lagu magacaabi jiray daraawiishta iyo waliba gumeystihii Ingiriiska sanadka markuu ahaa 1900. dagaalkii ugu weynaa ee dhex maray Ingiriiska iyo daraawiishta iyo xilliyadii ay dhaceen waa sida tan soo socota. dagaalkii ugu horeeyay waxa uu dhacay sanadka markuu ahaa 1901 waa bishii shanaad 3deedii. dagaalkii labaad waxa uu dhacay 16 bisha 7 1901. dagaalkii saddexaad waxa uu dhacay 10 bisha 8 1902. dagaalkii afraad weeyaane waxa uu dhacay 17 bisha 4 sanadka markuu ahaa 1903. dagaalkii shanaad waxa uu dhacay 18 bisha 4 1903. dagaalkii lixaad weeyaane waxa uu dhacay 10 bisha 4 1904. dagaalkii ugu dambeeyay ee dhex maray dagaalamayaashii gumeysiga iyo waliba Ingiriis iyo ciidamadii uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ee lagu magacaabi jiray ciidanka daraawiishta waxa uu dhex maray sanadka markuu ahaa 1919. Sayid Maxamed Cabdulle Xasan waxa uu dhintay sanadka markuu ahaa 1920 meesha la yiraahdo Ilme ayuuna ku dhintay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. halka ayaan ku soo gabagabeynaynaa taariikhda kooban oo aynu ku diyaarinay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena SYC subscribe taabana gambaleelka si ay rukun kugu noqdaan waxyaabaha aan soo gelino iyo waliba barnaamijyooyinka aad ku xiisaha badan aan soo gelino si ay mar waliba kugu soo dhacaan. aad baad u mahadsantihiin la socodkii waliba la jaanqaadka waxyaabaha aan soo gelino.